kulan wacan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeena sheeko sheeko. waa tahay dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan sheeko la magac baxday laabmida iyo luur jacayl. sheekadan waxaa qalinka u qaatay abwaanka Soomaaliyeed ee Ismasi Toosi oo lagu yaqaano soo saarista hadba sheeko xiiso badan. marka sheekadanna waa sheeko xiiso badan oo inoo noqon doonto sheeko taxana ah. marka waxaad ku soo dhawaataan sheekadeenna. dabcan astaantan dhegihiina ku soo dhaceyso ayaa barnaamijkeena hal ku dhig u ahaan doono ee sheekada intay socon doonto. dabcan waxaad ku soo dhawaataan sheekadeennii, balse hordhac yar kadib waxaa inoo bilaaban doono sheekadeena. dabcan waxaa noo bilaabanayso sheekadeennii taxnada inoo noqon doonto ee la magac baxday laab mid ah iyo luur jacayl. dabcan sheekadani waa sheeko ka hadlaysa marxaladda jirta ee qarnigan iyo caashaqa, waana sheeko muujinaysa laba hablood oo walaalo ah hal mar wada jeclaaday wiilay isku bahwadaagta waxbarashada ahayn. dabcan sheekadani waxaa qalinka u qaatay abwaankanaga, waa abwaanka Soomaaliyeed, waa abwaanka looga haray qorista iyo soo saarista waxyaabaha xiisaha badan ee ku qotoma dhanka wacyiga jira. waa abwaankeena Ismasi Toosi ayaa sheekadani qalinka u qaatay. sheekadani waxay ka turjumaysaa dhacdo dhaba oo inta badan saameysa dalkeena iyo dhammaan caalamka intiisa kale, waana qiso muujinaysa hanka isku midka ah ee ku aadan jacaylka ee si wada jira ugu qaadeen hal wiil. kuna soo dhawaada sheekadii oo inoo bilaabanta dhegeystayaal. qaybta koowaad ee sheekada waxay nooga bilaaban doontaa Barni iyo Bilan. waa laba gabdhood oo walaalo ah, iskuna hooyo iyo aabbo intaba ah, waxayna wax ka dhigtaan iskuulaadka ku yaala magaalada. labada gabdhood waxay wada dhigan jireen laba iskuul, midna wuxuu ahaa machad, midna wuxuu ahaa kuwa Soomaalidu u taqaan ee private-ka. Barni iyo Bilan waxay ahaayeen gabdho saaxiibo ah, islana socodsiiya arrin walba oo la soo gudboonaata, farxad iyo murug miday doontaba ha ahaatee. ayaa dhacday in private-ka ay dhigan jireen uu ku soo biiro wiil lagu magacaabo Baari Cadde oo asna kol dhow uun ka yimi mid ka mida gobollada dalka. Baari Cadde wuxuu ahaa mid ku firfircoon dhanka waxbarashada iyo la dhaqanka ardaydiisa uu wax la barto. Baari Cadde labadii maalmood ee ugu horreysay wuxuu la qabsanayay jawiga magaalada uu yimi iyo tacliinta cusub ee u bilaabatay. la qabsi gaaban kadib, Baari Cadde waxay iswada barteen ardaydiisii wax la baranaysay, waxaana dhacday inay is horbartaan Barni oo ahayd Bilan walaasheed. waxaana dhacday markii baraagtiis la qaadanayo uu mar walba doorto Barni oo ahayd gabar active ku ah ku hadalka luuqadda Ingiriiska.
walwalkiisu wanaag isku doori markaad wehelsiisay naftayda wareertay rabbiga walwalkiisu dhegeystayaal waxaa halkan nooga dhan qaybta koowaad ee sheekada dabcan qaybta koowaad waxay ahayd hordhac waxaad mar kale dhegeysan doontaan qaybaha kale ee sheekada qaybteena koowaadna halkaas ayaan ku soo idlaynaynaa ee sheekada waxay iga qaatay weedhaadii sawdku